السلام عليكم. waxaa macquul ah in aad su'aashan isweydiisay waxaan ahay qof fiican dadku amaanaan rag iyo dumarka tahayba la jecel yahay laakiin maxaan xaalad adag ugu jiraa wax ii hagaagayana ayna u jirin maxay umuurahayga oo dhan u adag yihiin waxaan baahay qof fiican qof wanaagsan waliba aad isweydiiso dad iga hooseeyo nasiibkay adduunkan ku leeyihiin iga khibrad yar iga cilmi yar ayaa waxyaabo badan xaqiijiyey waxyaabo badan sameeyey haddaba maxaa jiro muxuu arrinkan igu dhacayaa waa macquul su'aalahan inaad isweydiisay haddaba si wada jir ah ayaan mawduucan uga hadlaynaa waana shay ay dad badan dareemi karaan annagoo raadinayna jawaab ayaan wixii aan ka awoodno uga hadlaynaa mushkiladan marka koobaad macluumadan ama kaaga ee qabso in aad tahay qof wanaagsan xilliyada qaar ma ogtahay in ay dhibaato kugu keenayso oo maxaad ka wadaa in aan ahay qof wanaagsan miyaa dhibaato igu keenayso marka ma qof xun baan noqdaa maya sug wax yar ku tilmaan haddaad rabto imaca qiiba zaa'ida waxay dhahaan qof aad u wanaagsan si xad dhaaf ah sida in dadka oo dhan ay wada leeyihiin waxaa si hoosa kuugu dusi waswaasa qof fiican ayaa tahay ha samayn wax dadka ayna kugu raacaynin maya ha dhihin marna dadka waxa ka diidin dadka maya ma dhihi karo qofkan in aad isha ku hayso ama qofkan uu isha ku hayo waxa ay dadka ka filanayaan ficil markuu samaynayo uu isweydiiyo talow dadku ma diidi doonaan qof fiican ayaad ahayd ma lagu dhihi doono qof fiican ma tihid waxyaabaha inaad wanaagsan tahay ka dhigaya mid nafac xun kugu soo celinaysa waxaa ka mid a ku kalsoonida dheeraadka ee aad ku kalsoon tahay dadka kalsooni wax shuruud ee aanan lahayn wanaaggaas dheeraadka ee aad wanaagsan tahay ayay uga faa'iidaysan in waqtigaada awooddaada wax walba ay noqdaan sharaako ay dadku leeyihiin waxaa la yidhi wax walba hadday xadkooda dhaafaan lidkooda ayay noqdaan dabcan wanaagga waan ogna inuu wax fiican yahay in aad tahay qof kariima waa shay wanaagsan laakiin wax walba markay xadkooda dhaafaan waxay noqdaan lidkooda qodobka ugu horreeya ee ku riiqaya haddaad tahay qof aad u wanaagsan waa ka hormarinta xaajada dadka midda dadka in aad hormariso inkiridda daatadaada naftaada inaad inkirto iyo waxa ay u baahan tahay halkan waxaan ka hadlaynaa qof arrinkan u samaynaya xishood dheeraad ah iyo maya ma dhihi karo waxaa dhici karta xitaa in shay xaaraan ah uu sameeyo qofkan keliya dadka maya ma dhihi karo kuwa saaxiibaday ayaa yidhi samee ma diidi karo sidaan soo yara sheegnay dadka wanaagga xaddhaafka ah leh ee aan ku tilmaami karno ereyga waa mid wanaagsan mayaba ma yaqaano dadka inta badan ay ku tilmaamaan in aaminid arrinkan uu ku moodsiinayo in aad natiijo xaqiijisay sida inuu dhaho kale tusaale ahaan qof wanaagsan ayaanahay fiican shaxshax ah dadka aroosyada u raaco aanan lahayn waqti u gaara noloshiisa juhdigiisa uu yahay sharaako dadka ay leeyihiin kadibna uu isku qanciyo uma baahnidba in aad wax xaqiijiso waxaa ka sii daran noloshiisa waxay isu beddeli meegaar ka samaysan ama kaag iyo alla hoogayay sababtu waa inuu dadkao dhan u maleeyo in ay yihiin sidiisoo kale oo markuu wax ka dalbado tusaale ahaan ay dhahaan waqti ma hayo mar kale nooga dhig kadibna uu dareemi liidid inuu isweydiiyo kale anigaba waqtigayga waan ku siiyey aroos ayaan kuu raacay meel ayaan isaga kaa raacay anoo dana lahaa adigana maad ii raacdid waxaan kuu huray waqtigayga iyo awooddeydii oo dhan adigana maad sidaasoo kale samaysid kadibna wuxuu soo xasuusan bayd ka mida gabayadii zuhayr bin abi salma ee ahaa waman yajcal ilmacruufa fii gayri ahlihi yakun xamduhu daman calayhi wayandami macruufka iyo wanaagga qofkii dhigaa meel aanan ku habboonayn wuxuu ku noqon lid wuuna ka shallaayi laakiin albaabka khasaarada wuxuu furmi markuu tusaale ahaan suuqa aado oo kale kadibna lagu qasbo gadashada iibsashada shay uuna u baahnayn keliya maya ma dhihi karo iskama caabin karo ninkan wax iibinayo qofkan suuqa jooga dabcan hawshiisa waa inuu alaabtan kaa gado dad waxaa jiro aanan maya dhihi karin ku celcelinta lagu celcelinayo shaygan inuu gato wax uuna u baahnayn inuu guriga keeno kadibna uu meel iska dhigo haddaba qofka aadka u wanaagsan ee aan ka sheekaynayno qofkan wax iibinahaya markuu dhaho shaygan gado wuxuu isleeyahay maya haddaad dhahda amaad niyad jabisaa ama kaa xumaadaa iska gado sidoo kale waxaa macquul ah wax xamaasad ah in aadan nolosha u haynin sida inay batarya kaa dhacsan yihiin oo kale sababtoo ah tijaabooyin adagba maadan soo marin ama qofka sidaanoo kale ama u soo marin iska hor imaadka nolosha waad ka wareeganaysaa waxaad ka fogaan jirtay wax walba oo aad isleedahay amaad lumisaa wanaagga aad wanaagsan tahay sida inaad ukun ilaalinayso kale in aadan xaqaada dalban karin inaad xaqaada ka aamusto adigoo leh dadka yacni iyaynan wax kale lagaa aaminin
maanta xaqiiqada qaraar ayaa ah waxaad ku nooshahay ama dhammaanteen waxaan ku noolnahay caalam aanan naxariis lahayn bani aadam dhagaxyo noqday bahallo isruugayo haddii aad mukulaal bisa tahay maanta waa lagu leefi waa lagu duban waxaad noqon barbecue haddaadan micyo lahayn waa lagu qaniini waxaan soo xasuustay gabay uu yidhi cantara ibnu shidaad waan ku raaci karnaa qaarna kuma raaci karno inta naga qusaysa keliya ayaanan soo qaadanayna sida inuu yidhi oo kale xakim suyuufaka fii riqaabi alcudali waidaa nazalta bidaari dullin farxali waidaa buliita bidaalimin kun daaliman waidaa laqiita dawi ljahaalati fajhali cantara ibnu shidaad wuxuu ku leeyahay haddii aad daalim la kulanto adigana daalim noqo dabcan halkan wuxuu ula jeedaa micyalahow haddii aad degto waddan ama meel ayna karaamo ka jirin iskaga tag waxaa jira buug magaciisu yahay bara sida aad u dhihi lahayd maya buug dhan ayaa laga alifi keliya inaad adeegsan karta maya arrin muujinaya ahmiyadda mayadana wakhtiga ku habboon sidoo kale waxaa jira buug asagana magaciisu yahay wanaagaada zaa'idka ah wuu ku dilayaa buugaag ayaa laga alifay waxaan aan ka hadlayno ma filayo inuu jiro zamankan jaxiimo ka xanuun badan in aad wax walba dhahdo in aadan aqoonin maya noloshaada waxay isu beddeli kubad ka samaysan shallayta iyo alla hoogayda aan soo sheegnay haddaadan aqoonin adeegsiga maya in xilliyada qaar aadan dhihi karin maya dadka wanaagsan ee iska fiican ee aan ka hadlaynay shaxshaxda ah waxa haadaanta ka tuuraya ee dhulka la jaraya waa in aynaba aqoonin maya in ayna waxba diidi karin ay isdareensiiyaan xishood cabsi khajal hadday wax diidaan sida inay dhahaan oo kale tusaalaan qofkan amuu idinka xumaadaa amaad qalbi jebisaan dib u xasuusa in aad isleedahay qof fiican ayaa tahay ee waxba ha diidin sidaan sheegnay waxaan joognaa zaman la isruugayo haddaadan wax ruugi karinna lagu ruugayo sida uu yidhi sidoo kale zuhayr bin abi salma akhyaaray adabka ama diiwaanada gabayada carabigii hore ma ahan shay caadi ah waxaa ku jiro gabayo ama micno aad isleedahay qofkii tiriyey yacni waa qof see ah siduu ahaa xataa kuwii la tiriyey wakhtigii casri jaahiliga haddayna ahaan lahayn gabayo qiimo leh nama ayna soo gaari lahayn sida uu yidhi oo kale zuhayr bin abi salma kelmado aad u malaysa inuu annaga nala hadlaayo wuxuu yidhi waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam ومن لا يظلم الناس يظلم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لم يكرم نفسه لم يكرم قفكي آنن حدود كيسا إلى شنن كرامديسا نفتيسا وقتكيسا ولا بربرين ولا استاقي ومن لا يظلم الناس يظلم هل كان طبعا معنه ما أهان حرفيا إن أضوح دلمسا زهير inkastoo uu noolaa waqtigii casrul jaahiliga haddana wuxuu anin xakiima oo dadka dhexdhexaadiyo dulmina kuma baaqaayo ee waa muujin haddaadan micyo lahayn waa lagu qaniini waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami waman yaqtarib yaxsib caduwan sadiiqahu qofkii qurbo gooni a tagaa cadow ayuu saaxiibo u malayn dad aadan aqoonin kaa'inaad noolayaal waxaad arkaysaa aad isleeda xagee ka imaadeen marka hore aad u malaysa inay saaxiibo yihiin laakiin aad dib ka ogaanaysa inay cadow yihiin qofkii aanan naftiisa karaamaynin siduu ku leeyahay zuhayr qofkii aanan naftiisa karaamaynin cid karaamaynaysa ma lahan waxaa macquula in dadka wanaagsan aan ka sheekaynayna ay degsadeen qorshayaal sida qabashada hawl muhiim oo ah noloshooda laakiin looga yeeray meel kale hawl ka ahmiyad yar hawsha ay hayaan laakiin asagoo iska caabin hadalka dadka inuu hawshii muhiimka ahayd uu hayay hadda meel iska dhigo laga yaabo dad iska soo wareegaya uu raaco kaliya inuuna awoodin inuu dhahmaya asagoo isle ama niyad jabisa ama kaa xumaadaan shaxshax zamankan qeexitaanka micnaha jaxiimada dhulka taallo waa ogolaanshaha wax walba iyo in aadan aqoonin maya waxaad sii ogaataa in aanan ka hadlaynin gacansiinta dadka ahaanshiyaha qof damiir bulsheed leh qof karaamo leh dadka khayr la jecel kama hadlayno ee waxaan ka hadlaynaa qofkaas xishoodka iyo maskanada masaakiinnimada daciifnimada ay halkaas dhigeen ee ah sidii yacni gaadiidka dadweynaha kale sidii in la wada leeyahay waxaa kaloo ka mid ah isku qancinta dhab ma ihi in qofku isdhaho kale wax dhab iga ahba ma jiraan hawshaanna ma qaban karo waxaa jira hadal loo nisbeeyo cali bin abi taalib radia allaahu canh oo ah laa takun salban fatuksar walaa liinan fatucsar ha noqonin mid qallafsan si aanan laguu jebinin aanan lisugu ka tegin hana noqon mid jilicsan si aanan laguu miirin aanan casiir lagaaga dhigin noqo qof feejigan qof caadi ah
لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. marna kama hadlayno inaad tahay qof wanaagsan oo caadi ah ee waxaan ka hadlaynaa qofkaas dadkaas waxa lagu tilmaamaa at-tiiba zaa'ida, qof aad u wanaagsan noloshiisa dhan hadda baakimay asagoo ka baqaayo radu ficilka dadka u soo jeestay in uu ku noolaado waxa ay mujtamac ka aaminsan yihiin kaliya yaanan fikir xun laga aaminin. sidoo kale waxaad sii ogaataa noloshan adduun markay dhammaato aakhira la aado laguma weydiinayo saaxiibka hebel, kaliya naftaada ayaa lagu weydiin. kullu nafsin bimaa kasabat rahiina, wixii aad samaysatay ayaa lagu weydiin. waxaan rajaynayaa in qodobadan aan soo sheegnay ee dhammaanteena wada anfacaan. mawduucan intaan ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.